waxaanu joognaa safaaradda Taiwan ay ku leedahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa maanta halkan waxaanu u nimidnay inaan officially si rasmi ah loo magacaabo ama loo launch gareeyo scholarship-kii Taiwan ee inoogu ballan qaaday oo haddii Ilaahay yiraahdo saddex phase kala noqon doona saddexda phase waxay noqon doontaa haddii Ilaahay yiraahdo in arday walba oo reer Soomaaliland uu xaq u leeyahay inuu apply gareeyo laga bilaabo kowda bisha labaad 2021 application kaasna waxa uu soconayaa ilaa 31 bisha saddexaad 2021 Taiwanese scholarship ku walaba kala yihiin mid waa Chinese scholarship midna waa ICDF laakiin labaduba waa Taiwan waxa muhiim ah marka ardaygu si uu uga guban in uu mid kaliya uu apply gareeyo wax saddex phase bay kala noqon doontaa haddii la yiraahdo phase-ka koowaad ardaygu isaga apply gareynaya marka loo soo jawaabo ardaygaasi haddii uu noqdo arday ku guuleystay application-ka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo xafiiska Taiwan ayaa marka dambe isla fariisan doona oo hubin doona shahaadooyinkan ardaygan inuu sax yahay in kale marka phase-ka la hubiyo haddii Ilaahay yiraahdo bilaha shanaad iyo lixaad iyo toddobaad waxay sameyn doonaan in ay kala ardayda la kala hufo oo la eego ardaydani ma yihiin kuwii saxda ahaa ee xaq u lahaa inaguna wasaaradda waxbarashada haddii Ilaahay yiraahdo waxaanu ku dadaalaynaa in ay waxayagu noqdaan wax transparency oo sida ugu quruxda badan leh ardayda xaq u leh ardayda ku guuleysay haddii Ilaahay yiraahdo waxa la qaadi doonaa August 2021 ayaa la qaadi doonaa sidaan horeba idinku sheegayna information ko dhan waraqduhu ku qoran yahay ardaygii hela master degree waxa weeyaan fee waa bilaash $1 waa la siin doonaa oo accommodation ardayga degree helana waa $800 marka waxa weeyaan arintaas waa fursad aad iyo aad u weyn ardayda reer Soomaaliland ee hiigsanaysa ama himilo leh fiilku doona ha noqday maanta waxa weeyaan waa arintaas waan soo dhaweynaynaa farxad bay runtii noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno xafladan lagu daahfurayay ama lagaga dhawaaqayay scholarshipskii ama deeqdii waxbarasho ay noogu deeqday dalka aynu saaxiibka nahay Taiwan runtii adduunyadu waxay ku kala horumartaa dadka Taiwan waa dal dhan walba ka horumaray waxa koobaad ee uu ka horumarayna waxa weeyaan dhismaha dadkiisa ama waxa loo yaqaan human capitalka inaguna waxaynu doonaynaa inaynu noqono dal horumarsan oo ku yaala gobolkan geeska Afrika haddaynu taa doonayno waa inaynu dadkeena dhisnaa xagga aqoonta ka dhisnaa dawladuhu waxay xiriirka u sameeyaan aynu wasaaradda arrimaha dibadda ahaan ama xukuumadda Soomaaliland ay ugu dadaalaysaa inay xiriir ula sameeyso dawladaha caalamka inay dadkeenu ka faa'iidaan dhan walba xagga dhaqaalaha xagga bay'ac mushtarka xagga investmentka iyo maalgelinta waxbarashada dalxiiska marka maanta waxa weeyaan maalin kamida maalimaha taariikhiga ah oo aynu daahfurayno muxuu ahaay scholarship-ka ama deeqda waxbarasho ee aynu ka helay muxuu ahaa walaalaheena ama saaxiibadeena Taiwan oo aan ahayn tii ugu horeysay Taiwan ilaa 2016 Soomaaliland waxay ka caawinaysay dhanka waxbarashada tababaraga gaaban bay siin jirtay ardayda ka baxda muxuu ahaay caafimaadka ama kuwa cash professionals ka shaqeeya qaybta caafimaadka imikana aynu daahfurnay oo aynu maanta ku dhawaaqnay ayna siin doonaan full scholarship. The good news today is that Taiwan is to provide scholarship to Somaliland students. We offer Taiwan scholarship and ICDF scholarship to nurture a talent pool of human resources for Somaliland. Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland will coordinate and cooperate with the Somaliland concerned ministries to choose outstanding Somaliland students through an effective and efficient mechanism. All these efforts are the reflection of Taiwan's commitment and determination to enhance Somaliland's capability through education cooperation.